السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. weli ma isku aragtay markaa miraada isku fiirido in wax dheer carabka gaashiisa ay kasoo taagan yihiin sidoo kalena ma isku aragtay in neefta ku dhibaydo ama aad qufac leedahay. Waxaan maanta ka hadlayaa mowduuc muhiim ah kaasi oo loo yaqaano epiglottitis oo ah in infection uu ku yimaado xubin ka mid ah xubnaha qaybaha ugu muhiimsan ee hawo-mareenka, taasi oo qofku markii raashinka uu qaadanayo ka ilaalida in raashinku uu aado qaybta sanbabka xaggeeda ama hawo-mareenka xaggeeda inuu aado. Xubintan waxaa loo yaqaanaa epiglottis. Epiglottis waxay ka mid tahay xubno badan oo isku dhaf ah oo hoos taga larynx, oo ah qaybaha ugu muhiimsan ee ugu horreeya ee hawo-mareenkeena. Haddaba mararka qaar waxaa dhacda xubintaani inay saameydo caabuq. Inta ugu badan xubintan loo yaqaano epiglottis waxaa caabuqa ku sababa inta ugu badan bacteria ayaa ku sababta. Bakteeriyadaasina waxay keeni kartaa inay ku sameydo infection aad u fara badan, kadibna waxaa dhici karta xubintii inay structure-keeda ama qaab dhismeedkeeda isbedelo maadaama ay xubintu u nugushahay infekshanada carjawn ay ka kooban tahay. Waxaa ugu muhiimsan inta badan oo infection ku keeno bacteria. Bakteeriyada ugu horreyda ee inta badan 25% keenta waa bakteeriya loo yaqaano H. influenza ama Haemophilus influenza. Waxaa kaloo mararka qaar dhici karta in Bar influenza ay ku keento, sidoo kale Streptococcus pneumonia iyo nooc ka mid ah bakteeriyaasha loo yaqaano group A Streptococci. Waxaa kaloo la sheegaa in mararka qaar fungal infection uu ku keeni karo xubintaas oo uu saameyn karo fangallada ugu muhiimsan ee infection ku keeni karo waxaa ka mid ah Candida oo dadka mataqaana badanana difaacooda uu hooseeyo ayay Candida ku keentaa infection. Sidoo kale Aspergillus ayagana sidoo kale dadka mataqaana difaacooda uu hooseeyo ay ku keentaa. Waxaa kaloo la sheegaa in virus uu ku keeni karo dadka qaar mararka qaar, oo haddii qofka hergeb uu ku dhaco kale mararka qaar waxaa dhacda in uu dambeedo in infection uu ku yimaado bahalka loo yaqaano epiglottis. Waxaana ka mid ah fayrusyada inta badan keeni kara herpes simplex virus, fayruska la yiraahdo. Way jiraan fayrusyo kale laakiin inta ugu badan kaas ayaa ka mid ah. Kadib markii caabuqaas uu ku dhaco, caabuqaas oo ka imaan kara bacteria, fungal infection iyo sidoo kale wax loo yaqaano virus, waxaa dhici karta in xubintii ay isbeddel sameydo carjaw maadaama ay ahaydna ay u nuglaato inay bannaanka u soo baxdo oo soo yara taagnaato. Waxaa markaas qofka laga yaabaa inuu isku arko calaamado badan oo ay ka mid tahay kow in codkii xoogaa isbedelo, in qufac uu isku arko mararka qaar, in neefta ay dhibto, sidoo kale in qanjirrada qaybta gadaal ee qoorta ku yaalla wax iska beddelaan. Waxaa kaloo laga yaabaa qofku inuu isku arko wadne garaac iyo sidoo kale in qofku stress uu ka qaado waxaan uu arkay ee ku cusub. Haddaba waa muhiim qofku inuu ogaado waxaani inay yihiin wax la daaweyn karo oo aad u fudud, wax dhib lehna aysan ahayn, wax mashaakil badan ku abuuri karana inaysan noqon ayaa la doonayaa. Dhakhtarna uu la xiriiro, kadibna xaaladdiisa uga warbixiyo si daawo loogu qoro, maadaama uu ogaaday waxaan wax infection sababay, wax infection keenay inay yihiin una baahan. Haddaba sidee lagu daaweyn karaa epiglottitis? Daawadiisu aad u fududahay epiglottitis, waxaana laga yaabaa inta badan iyadoon la daaweyn xataa inuu iska raysto, laakiin daawadiisu inta ugu badan waa antibiyootik qofka in la siiyaa maadaama number 1 waxa keena in xubintan infection uu ku dhaco ay tahay bacteria ay tahay. Bacteria waxaa lagu daaweeyaa waa antibiyootik ama qallajiyaasha daawooyinka la yiraahdo. Laakiin waa muhiim in dhakhtar kuu qoro dooska aad qaadanaydo iyo daawada kugu habboon. Waxaa kaloo muhiim ah dadka in loogu daro daaweynta waxa loo yaqaano daawooyinka fungal infection-ka badanaa boomaatóyinka loogu daraa si labada dhinacba looga yaabo haddii laga yaabo in wax ka yimid looga daaweeyo. Waxaa kaloo qofka haddii hergeb uu ku dhacay maalmahaas ama isbuucyadaas ka hor muhiim ah in ama la soo jeediyo in loogu daro daawooyinka antiviralka ah. Sidoo kale waa in qofku uu isticmaalaa waxyaabaha naturalka sida sinjibiisha, filfisha, xabasowdada, saliidda dhagayaraha. Muhiim ah inuu wada isticmaalo laakiin waa intii uu heli karo wixii uu heli karo inuu ka isticmaalo ayaa muhiim ah. Waxaa kaloo iyaduna muhiim ah qofku inuu ku dadaalo nadaafadda afka uu mar kasta kula luqdo waa intii xanuunkaas uu qabo biyo qandaca oo cusbo leh. Sidoo kale waa in qofku cadayga uu isticmaalaa habeen kasta markuu seexanaa, ha qabo xanuun kale afka ama yuusan qabin. Waa muhiim qofku inuu ka luqdo cunooyinka uu isticmaalay. Sidoo kalena waa muhiim qofku inuu mar kasta uu isticmaalayo oo seexanayo oo cadayeysto si ilkaha iyo dhulka ku xeeran suuska iyo uga badbaado. Haddaba waxaa muhiim ah si guud in qofku nadaafadda afka ku dadaalo asigoo cadaysanaya habeen kasta markuu seexanayo kana luqluqanayo cunooyinka uu cunay maadaama cunooyinkaas haraadiga ah ee afka ku soo haray ay ka faa'iideysan karto bacteria, kadibna ay keeni karto waxa la yiraahdo secondary infection maadaama bacteriadu iyadoo normal flora oo dhib ku geysan afka ay ku nooshahay. Haddii jaanis ay ku korto ay hesho oo sokortan iyo waxba afka ku haray oo cunnada ka soo hararay waxaa laga yaabaa suusan ay kugu sababto
sidoo kale inta dhacdo inay qaybaha hoose infection kaaga sameeyo ay dhici karta oo dhuunta sida epiglottiskan iyo qaybaha dambe carabka dambeeyda. haddaba qof kasta oo doonaya in wax badan kasii ogaado tala bixinna doonaya insha allahu tacaala lambarka whatsappka ee meesha ku qoran ayuu ila soo xiriiri karaa. sida ay nabadgelyo barnaamijka inoo sheer garaya insha allahu tacaala.